Su'aashan aan ku weydiiyey maanta, imise saac ayaa ku qaadatay isticmaalka moobilkaada? Dabcan jawaabteedu waxay noqon doontaa saacado badan. Waxaa macquul ah inaad ku jawaabtid 7 saacadood, 8 saac ama xitaa 10 saacadood ama wax intaa ka sii badan. Ama ka soo qaadna maanta dhan inaad moobilkaada ku qaadatay 4 saacadood oo waxba suubin. Ood keliya sariirtaa saarneed, shaashadana aad saa u eegaysay. Haddaba ka waran saacadaha intaa le'eg haddaad ku bixin lahayd shay kale. Waxaa ku qaban lahayd 2 ilaa 3 hawlood oo noloshaada horumarkeeda ka qayb qaadan lahaa. Ka waran haddaad 2 saacadood gelin lahayd oo diyaargarowga iyo horumarinta xirfadahaada shaqo. Waxay doontaba ha ahaato. 1 saac oo kalena aad gelin lahayd kasbashada xirfad cusub oo in yar taayirka noloshaada hore u dhaqaajinayso. 1 saac oo kalena aad gelin lahayd inaad jirkaada siisid jimicsi ood in yar orod samaysid ama aad jiimka aadid. Bal ka waran maxaa kuu diiday inaad saa samaysid? Maxaa kuu diiday inaad internetkaada iska xirtid kadibna 2 saacadood aad suubisid wax ku anfacay? Bal muuqaalkan aan isku weydiinay su'aashaas aan u helna ama aan isku dayna inaan xal u helna iyo jawaab sax ah iyo qaabka aan uga fakan karna ciladan haysata. Waxa kuu diidaya inaad suubisid waxa kuu muhiimka ah ee noloshaada beddelaya korna u qaadaya waa waxa loo yaqaano dopamine. Dopamine-ku waa dheecaamo fariinsidayaal ah oo maskaxda soo deyso marka ay qabanayso wax ay la qabsatay ama comfort zone-keeda ay ku jirto. Waxayna sheegayaan in maskaxda ay waxaas ka helayso farxad iyo raynrayn. Haddaba marka uu sameeyo jirka wax khilaafsan oo ka duwan waxa ay nafsada dopamine-ka ka hesho, maskaxda ma soo deynayso wax dopamine ah. Taa beddelkeeda jirka waxay saaraysaa cadaadis. Jirkan wuxuu dareemayaa caajis, daal, tabcaannimo, sababtuna waa dopamine la'aantaas. Xalku waa maxay haddaba? Haddii mushkiladaas ku haysato, xalkaadu waa dopamine detox wax loo yaqaano. Waxa af Ingiriiska lagu dhaho dopamine detox. Oo la micnaha Soomaali marka loo wareejiyo ka soomidda dopamine-ka. Waa inaad ka joogsatid wax kasta oon ku wanaagsanayn si nafsadaada ay ka hesho dopamine-ka. Waxaas aad ku mashquulsan tahay 24 saac maalinkaada. Maskaxdaadu waxa adiga kuma doonayso, waxay doonaysaa waxyaalahaas emotionskaada ee la falgalayo, waxyaalahaas dareemayaashaada la falgalaya. Waxyaalahaas aysan dareemin inay ku cusbeen, ku adkeen, hore u suubin ayay jeceshahay. Laakiin maaha marnaba wax ku saacidayo. Haddaba sirto waa inaad xoogga saartaa xadkaas ka gadaalay emotionskaada. waxaa markaa ku mashquulinaysaa nafsadaada wax kuu muhiim ah, waxaad ka soomaysaa dopamine-ka. Dabcan waxaasna u aragtid wax aad ku adag marka koowaad ayay adag yihiin. Laakiin markaa mar koowaad samaysid, mar labaad samaysid, mar saddexaad, afraad, shanaad, marka dambe waxay kuu noqon doonaan wax iska dabiici ah. Tusaale ahaan, waxaad doonaysaa inaad barato wax akhriska. Bilowga hore maskaxdaada wax dopamine ah kama heli doonto inaad wax akhrisid, bal way ku adkaan doontaa. Laakiin markaa marar badan wax akhridid oo maanta bog akhridid, maalin kale 2 bog akhridid, maalin kale buug akhridid, maalin kale wax akhridid, marka dambe maskaxdaada way la qabsan doontaa, waxayna ka heli doontaa dopamine akhrinta buugta. Haddaba haddaad doonaysid inaad nafsadaada u dhaqaajisid dhanka wanaagsan, aad doonaysid inaad ka takhalustid waxaa dibka kuu dhigaya caadooyinkaas xun aadan jeclaysanaynin, xalkaagu waa inaad samaysid dopamine detox. Dopamine detox waa inaad ka soontid wax kasto oon ku wanaagsanayn oo nafsadu ka helayso farxad, raynrayn iyo ay ku dareemayso farxad zaa'id ah. Aadna samaysid waxaas maskaxda ku adag, ku rafaadka, tabcaannimada ku dareemayso ilaa ay la qabsato. Intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta oon uga hadalnay dopamine detox, ka soomidda dopamine-ka. Intaan ku kulmi doono muuqaal kale, saayo nabadgelyo.